هذا كيف نقول عن سفعان marka anagu waxaanu ahayn de qabtii hore waxay ahayd in la helo because ciidamadii oo de bila raashina believe me xitaa waxaanu gaadnay madaxweynaha securitygiisa gurigiisa ku ilaalinayay ayaa bila raashinaha markaasuu madaxweynuhu maalin yeer xigir maxamed wax allaala waxaan siiyo askartaydii ma hayo horta runtii xag de halkaa waa laga soo qaaday lacagtan badan iyo kharashkan badan iyo dakhligan badan ee Somaliland ee lagu ciyay ee hadii la basriyo si fiican loo sameyn lahaa laba meelood bay ka yimaadeen mid waa dakhliga gudaha Somaliland ummadeedu waa taxpayers سفعان hadday ganacsi tahay hadday wax kala tahay waa taxpayers horta taxpayers waxay noo faa'iideysay in maahii dawladdu ay bixiso laakiin lacagtan boqolaalka milyan Somaliland a year imika wax lagu qarash gareeyaa nearly $500 million budgetkii hore 200 milyan buu imika kan waa the same laakiin maaha un budgetka lacagaha developmentka waa lacagaha lagu helay wada hadaladii Soomaaliya iyo Somaliland marka tayadu waxay ahayd waqtigii bisaarada noogu xumayd aan adduunyaduna de aanay waxba bixin laakiin imika waxa laga hadlayaa waxa weey war imika maadaama adduunyadii ay dhaqaalan siiso aanan wax lownaho aanu bixinana aanu jirin dunidii taxkina ay ummadda wada bixinayso thousands and thousands Somalilanders ayaa sanadkan tagay ama sanad walba taga lacag ma dhigo Hargeysa lacag baa laga helaa lacagtii Somaliland war inoo basriya oo ha laga daayo ciyaarta iyo fanka iyo niiraahda 30 years baan jiraa 5 million arrintan telefono ayaan galeynaa mar su'aalan ka hormarinaya arrintii dekedan ka ayay wataan taad dekada waan ka hadalnay waxaan rabaa Somaliland marka fiirisid dhinaca jeebka dadku waa kala jeeboray dadna aad u jeeboray dadna aad u liita arrintaasi marka la fiiriyana dad badan baa salugsan oo qofka bini aadamka intuu mushtar soo bilaabo ama shirkad uu leeyahay ama uu kaliya yahay horumar waa garaa way jiraan dad badan oo Somaliland oo taariikh kule xagga baac mushtar oo wuxuu alla u kordhiyay ma sha Allah laakiin waxay tirsanayaan dadka qaar dad badan in jeebkoodu degdeg u wacyiilay oo u burtay arrintaas sidoo waqta Somaliland waxaan kugu yiri intii wada hadlada Soomaaliya iyo Somaliland ka dambeysay dhaqaale fara badan baa soo galay waa gartay dhaqaale badan ee soo galay dad dawladda contracts bay bixisaa dadka macnaheedu maanta jeebkooda buurtay ee Somaliland irkan maray waa laba waa gartay tijaarta dawladda ku xidhan iyo waxa weeye ragga contractska ku xidhan dawladda xisbiga kulmiye ku xidhan contractska bilaashka alla siiyo ilaahay baan ku daariyay ummadda Somaliland ama Soomaali ama adduunyada meesha waxaan ka dhicin waxaan leenahay guddi la yiraahdo guddiga qandaraasyada waa kuwa contractska bixiya tijaarta u samaystaan ku sheegay contracts bay bixiyaan maalin dhaweeyto waxa la yiri waxa yiraahdo diiwaan gelinta ama halkan civil registration ID-yada ayaa contract lagu bixinay dad aqoon yahana shirkado fiican wax walba soo baxay waxa la ogaaday contract ninka bixinaya iyo ninka dabada ka riixaya iyo ninka la siinay saddexdaba waa isku reeb marka waxa weeye marka waa qabiil baadada reerhan baa lagu bixinayay taas ma laakiin waxaan anigu u jeedaa imika rag la siiyay ilaahay baan ku dhaariyay nin dawladdu wadato oo la yiri civil registration ki adigu samee sidee oole waxaan computer buu soo qaato waxaan gelinayaa dadkii doorashada sameyn lahaa hadhow soo xubnaha dadka register gareeyay xisbigiisa u foodin soo isaga delete gareyn maayo dad wuxuu tan la oranayaa wixii wadani iyo u cuduna waa delete gareynaya ilaa computeradii bay haystaan aad baan ku fahmay telefoonkan eegaya aad baad noqonsantaa line-ka telefoonka assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها والله المقع على جوتيد والله سرعة ديريا هذا وحن كلا يا كمبلا يوان دمر waxaa ila fadhiya Maxamed Yaasiin Xasan waxaan faa'iina daawanaysa barnaamijkan iyo arrimaha aanu ka hadlaynay su'aalaha iyo jawaabaha marka maadaama ka dhahay maxaa ka baxay walaalkay aqoonyahanka caaw dhan wada dhageysanayay si fiican barta hadii la ku idmaayo u wadayseen waxaan rabaa in ka hadalada Somaliland iyo Soomaaliya dadku inay waraan wax aad wanaagsan soo dhaweeyay ma garan si fiican waa gartay walaaladu muddo raahayn marka ruuxa ka hadla ma garan waa gartay maxaa xaraan ka dhigaya walaalo waxa xaraan ka dhigayo Soomaaliya reer ma qabsan karo waxa weey wada hadaladii dadkii midnimada Soomaaliyeed u hadlayay ee difaaca Soomaaliya marka wada ee dabaad la marinayo ee karshaala waxta lagu
dawladda Soomaaliya aysan ka hadlin teeda kala hadalina aan laakiin waxa shirwa marka la hadlo Soomaaliya iyo Somaliland arrimaha aad ka hadlayso iyo kuwa kala Soomaha wixii bilaayay laga wado ilka hor wada hadana dib iyo dheefba Soomaarka hore in sal loo dhigo oo cidii ka wada hadlay la fiiriyo aankoodi oo la isu keeno hana wax laabo kadibna wixii dhibaato iyo wixii dheefa laga hadlo mise waxa la adigu marka horeba xaqa laga bilaabo iyadoon labada dhinac wada hadlin hal ka gaar ma aha wala si fiican horta ugu hadlaysa khayraad ku sii wala dadku horta in loo hadlan yahay dadku wada kale la isaga yahay ku qurux badan tahay hadii qabiil haysan karo Soomaaliya ma dhigo 91kii waa ay qabiil qabsada waa la waayay dadku waa arxan waa wada dhashay diyaar meel la suro ulada dawlad baana laysay dawladdu nimankan 80 way ka dideen bay hadda ku hayaan dadka inta abshir waa fikraaga iminka barnaamijkan hadlayna kuma saabsana dhibaato dhacday ama colaad hore wuxuu saabsan yahay waa in la wada oo dhib kasta oo horay u dhacay history ahaan la soo qaado maxaad ku diidantaa adigu wala ma diidan in la wada aad weyn ayaan ku in wada hadal laakiin waxaan jeclaa wada hadaladu cadaalad basiir nolosha koowaad waa cadaaladda dawladda Sheekh Maxamuud wax u baaraya wada hadalada dadka loo siinayo bay qaatum ha lagu soo daro anigu kama soo jeeda cagmadiga marka baan ku fahmay aad baan ku fahmay waa firkaaga aad baan ku fahmay waa Xasan Xasan Sheekhna waa laga yaabaa barnaamijka dheehanayo aad baad u mahadsan linka telefoonka ayaan u gudbaya assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh walaal assalaamu calaykum cagmadhiga kula hadlaya TV gaabi walaal magacaaga halka joogtid ya walaal haye Faadimo Salaaman barnaamijka ma la socotay intii uu socday wala socday ila bilowga ila iminka haye maxaa ra'yigaaga iyo fikirkaaga ya walaal horta inankan baan doonaya inaan la hadlo codkaaga kor u qaad ya wala socday walaal barnaamijka ila socday ila inta bilowdeen kowdee si fiican walaal waxaan la hadlayaa ninkan reer Somaliland ka hadlaya Somaliland iyo Soomaaliya wada hadalkeeda waa gartay marka ugu horeysa horta isagoo markii hore wasiiraha oo markii qofka saabo wuxuu yahay markaas wasiirka ama shaqada laga qaado intuu halkaas soo fadhiisan Somaliland haayo waa gartay Faadimo Salaaman telefoonka igala soo TV-ga iska daa walaal sababtoo waxa uu ka hadlaya waxa weeyaan waa nin isagu maradiisii intuu isqaawiye halka taagan oo laakiin Faadimo isagu maadaama uu siyaasi hore ahaa reer Somaliland uu yahay siyaasadana uu ka qalay diblomaasiyadana wax badan ka ogyahay ma waxa diidan tahay inuu wixii sax iyo wixii qalad uu kala sheego marka wasiirka wixii jiray inuu ka halaabay laakiin maanta markuu halkaas soo fariisayno Somaliland qaawiye ma laakiin waan weydiiyay markaad wasiirka ahayd dhibaatadan aad sheegaysaa miyaanay jirin baan idhaahdaa xusuusanaysid isani uu ka bood marka maad garan hay wuxuu hadalkiisu wuxuu ku celcelinayaa lacag baa la siiyo maxay tahay lacagtii xoolaha la siiyay Somaliland wada hadalkeeda ayuu ka helay laga helay buu leeyahay kowdee marka waxaad tiraahdaa in adeer walaal Soomaaliya iyo Somaliland hadday hadleen wanaag baa jira in la isu soo jiido oo wixii labada qoloba ay doonayaan in laga wada hadlo laakiin inaad qaawiso dalkaaga iyo dadkaaga maaha aad baan ku gartay adigoo maaragtay igala qayb galay barnaamijka waa kaaga mahadcelinaya linka kale ee telefoonka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh عليكم ورحمة الله وبركاته. والله كسر برنامج كم قاعد يالك شوفتيد. والله مبسوط والله أنا قال لي بورة بس. هيا ولا البورة مع مركا هيا. تي في جالس كده ولا لا. والله هوسا Soomaaliya iyo Somaliland. هيا. Dhamaatay. Xaqiiqdii marka ay soo midooban walaalada Soomaaliyeed waan ka wada hadlay laakiin waxaan aaminsanahay mar haday maanta xildhibaanadoodii laynayaan oo ay dhexdooda tahay in Somaliland nabad tahay taas xildhibaanada noogu kaadi ee Soomaaliya iyo Somaliland wada hadalkooda seed u aragtaa adoo booraba jooga waxaa kullu Somaliland waa dowladda madaxda maanta aaminsanahay si fiican waa dalku amniga inta ay xamar gudanayso ilaa inuu heshiis la gelayo aad iyo aad waxaad aaminsan tahay gubashadaas aad sheegtay markay dhammaato oo qiiqa uu yaraado oo iftiin loo baxo ayaa wada hadalka ay ku fiican tahay ka wada adigu soo ma waqtigii uu dhamaaday Soomaaliya sidaa kala doqay soo noqonayso aad buu mahadsan yahay isagoo jooga magaalada Boorama oo runtii ka biyo diidsan iminka wada hadalka inay socdaan isla bal dib ha loo yara dhigo hadii alla ka dhigo linka kale telefoonka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh barakaad cagmadhiga adinka iyo idin salaamaya iyo
wasiirka meesha fadhiya. aad iyo aad codkaaga kor u qaad walaal magacaaga. aniga xaaji baa la yidhaahdaa. haye xaaji xagee joogtaa? xaaji waxaan joogaa Denmark. haye maxaad oran lahayd markaa walaal maadaama aad barnaamijka la socotaan qiyaasiga? waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo Somaliland waqtigay ku dhawaaqday inay ka Soomaali inteeda kale ka gooday waxa laga joogaa san filayo 22 sano. Soomaalidana haddana wada hadal baa socday sida uu sheegay oo dhaqaale badan lagu bixiyay. maxaa loo waayay siyaasi reer Somaliland oo ka hadla xaqiiqda u sheega shacabka reer Somaliland oo ku yiraahda anagu kaligeen meel ma tii karno Soomaali inteeda kalena kama maaranne maxaa xalay maxaa loo waayay marka taas arrin aan weydiiyo. waa su'aal aad u wanaagsan aad baad u mahadsan tahay mudane maxamed yaasiin xasan daawadahaas dambe dadku xigooda dhiibteen oo qaar waxay ka hadleen wada hadallada iminka inaysan sidaan ka wada hadlay laakiin iminka isagu wuxuu leeyahay maxaa loo waayay qof reer Somaliland oo yiraahda xilligan arrinku sidaa kuma haboona arrinta bal sidoo aragtaa horta arrimahan laba u kala dhigo arrinta ninkani uu weydiiyey iyo arrinta inantii kala hayd Somaliland buu qaawiyo Somaliland waa wadankaygi waan jecelahay mana qaawin karo laakiin waxaan jecelahay xukuumaddu hadday fashilantay inaan qaawiyo xukuumadda waa gartay Soomaad garan oo aan ceebaalkeeda aan dee tuso kosti xukuumadda kama tirsaniyo macaarid baan ku ah marka hadday khaladaad samayso dee khaladaadkii waan muujinaya taa micnaheeduna ma aha wadankaad necabta Soomaad garan Somaliland igama jecla xidna igama jecla waa wadankaygii waa meesha aan micnidee ku ahay okay marka taa inantaa iyadu si raalli ku ahaanaysa hadday leedahay dawladda halkaa ka ammaana I'm sorry ammaani karayo wax qaladan dee aan arkayo taasi waa taa taa waxa ku soo hadhay Somaliland shacabka iyo wada hadallada iyo ninkii hore ee ka hadlayay arrintii ninkii Uganda ka soo hadlayay Shirwac horta waxaan oran lahaa ninkii ka soo hadlayay Uganda hadduu rumaysan yahay haddaan rumaysnaynba Somaliland waxay ahayd wadan jiray maantana jira laakiin jiritaanka ay maanta jirto ciyaar kuma iman dhiig iyo naf iyo maalba waa loo huray Soomaad garan maantana ciyaar mid ku tegaysa ma aha annaguna waxaanu doonaynaa waxa weeye Somaliland inay gooni isu taagto that's priority-ga aanu leenahay wada hadallada qof waliba fikrad buu ka qabaa anigu waan aaminsanahay wada hadalladu inay socdaan because wada hadallada waxaan u aaminsanahay haddii la yidhi dawladdani waa dawlad adduunyadu ictiraafsan tahay ee wada hadla wax ceebaaloo ku jira ma jiro laakiin annagu waxaanu aaminsanahay wada hadalladani inaanay dheeraanin ee ay noqdaan inta la wada hadlo weli qadiyadda xasaasiga ee gooni isu taagga Somaliland iyo midnimadan ay sheegayaan aan ka wada hadallo wadan daacad ka ah sida Ingiriiska oo kale ama wadamadan kale reer Yurub oo daacad ka ah Soomaad garan in meesha lagu qabto Turkigu waxaan aaminsan anigu daacad kama aha Soomaad garan waa anaaba tagay oo dee laygu yidhi midnimadii ayaan doonaynaa marka taa Turkiga markaan waxaan aaminsanahay dawladduna way ku fashilantay wada hadallada waxaanan aaminsanahay for the time being ha ku dadaasho in laga bedelo Turkiga ama international community-ga loo gacan geliyo ama dawladihii markii hore laga soo boobay Ingiriisku oo ahaa European Union way markii halkan lagu wada hadlayay dawladdii Sheekh Shariif iyo Somaliland waxa goobjoogayaalka ahaa dawladda Norway European Union-ka iyo muxuu ahaa Ingiriiska wada hadalladani waxaan aaminsanahay halkiisii ha lagu soo celiyo Soomaad garan waxa ku soo hadhay ninkan ugu dambeeyay oo yiri hal loo waayay shakhsi reer Somaliland oo yiraahdo arrinka micnida yiraahdo midnimadii lagu soo noqdo yes midnimadu hadday wanaagsan tahay waa wax wanaagsan cilmi diin karayso laakiin meeshii midnimo maanta taalo waa run muqdisho maanta waxa ka jira weyn ognahay dhibaatooyin baa ka jira ilaahayna anigu waxaan aaminsanahay waan u ducaynaynaa in ilaahay wixii dhibaato ah uu ka bixiyo waa dad Soomaaliyeed waa dad maatood la laynayo ma jeclin wadiga arkay xildhibaanadii baa la laynaya waxaanu jecelahay ma aha waxaan leenahay ilaahay ha ka dulqaado laakiin shacabka Somaliland anigu haddaan rabo gooni isu taag
يعني الشعب الصومالي لأن أي ربان ما بريش كراين كراينه ما أورن كراينه مدنما هلا قات أديت مركا وحوي كانت وحي أطالع يا شعب الصومالي لأن بيطالع يجا مركي هو يونيون كي دورتي يجا كسو قصاري ليج بيوهرين ما أنتنا وحي تاجن تهايون waxaan u arkaa wada hadalladan istiraatiijiyad ugu weyn ee aanu ka leenahay waxa weeye sidii Soomaaliland ay gooni isu taagnayd haday Soomaaliland gooni isu taagto ya waa hubaal in ay noqon doono laba wadan oo jaara oo wax wada qabsada sida Djibouti iyo Soomaaliland ba maanta ku wada qabsanayaan in loo wada qabsado waxa tahay aqoonyahan yani aqoontiisu sareysa ma sha Allah dawlamaasi ahaan jiray siyaasiya iminkana wax badan baad ka sheekaysay khaladaad badan baad Soomaaliland ka sheegtay waxaad ka soo qaadaa inaad isu sharaxday madaxweyne oo kale Soomaaliland bilmatal waad guuleysataba dhibaatooyinkan aad sheegayday maanta oo dhan iyo barnaamijkeena xageed wax ka bilaabi lahayd mid iyo laba ii sheeg barnaamijku waa gabagabo runtii horta mid baan suurtoobaynba haye siyaasaddan oo Soomaaliland yani ninkii u arkay inaan anigu because ambition dambe oo siyaasadeed oo Soomaaliland aan leeyahay ya siyaasaddan oo Soomaaliland anigu aan dadka leeyahay haba yaraatee ma jirto laakiin hadii lagu baxdo maxamed oo lagu yiraahdo kaalay ma diidaysaa horta mid baan ku sheegay haye waan diidaya haye because waxa weeye almost maanta markaan runta eego shaqadeydii igu horeysay aan dawladda Soomaaliyeed u qabta wuxuu ahaa January 1980 ayaan bilaabay maanta waa dhowr iyo 40 دوري صدق سنة وين يا الحمد لله رب العالمين ما أنت أنا ده وزير نمنا وين قارئ يعني ده ونور شيء ذنا واحد أبس دامس فرا بدن وان صارك لكن وحن آمن سنة نفتي دنا كوقنا عسنته إن نقضوا مواد سومالي لاندرة وقضية السومالي لاند الشقية لكن أمبيشن دمبي وحزبي دمبي أو الصومال حزبي أنا كنت كوشيجي كو قرن مايو حزبي وطني ما تهاجر سنة because وحنوار كا بدوميها برلمان كسوماليلاند عبد الرحمن ونين ولا أمة السوماليلاند ما أنت تشوفه أي تقانا إنه يحيي the right man ما أنت السوماليلاند بعتها أي كتشرته ما أنت وضم ذي شارك يتوب حد كده بحرت جبوت حد كده بحرت سوما قرن دولة دي ويسكور يرسنتها مركا مشكلة داس أردن waxaad arkaysaa waxa lagu oranayaa wadooyin baa la sameeyay kana la sameeyay hal wado oo 5 kilomitir inta soo fiican oo la sameeyay mid daamir la saaro oo ma ogi ama ha la yiraahdo tii wadadii ood weyne wax allaala wax laga qabtay haba yaraatee ma jirto wadooyinkii galbeedka waxba laga ma qaban Hargeysa gudaheeda gaarigaaga kuma dhex wadan karay sidoo waxa jira waadiga arkay yes way jiraan wadooyin yar yar oo la sameeyay ma dafiraya taa way jiraan laakiin anigu waxaan dafirayaa oo diidanahay waxa weeye wardaqaalihii aynu helay sidii la rabay ya wax looguma qaban ee dad gooniya lagu naasnuujiyay waxaan filayaa in barnaamijyada soo socda aad baaritaan sameyn doontid si aad noogu sheegtid dhaqaalaha faraha badan ee aad sheegtay in dadka lagu naasnuujiyo aad soo heli doontid liiskooda biidnilaahi karim barnaamijkuna gabagabo midba ka oranaya tahay anigu ma ihi investigator ma ihi wax baar يا وحن إيجي ونجود أهان dalkayna Soomaaliland marka dalkayga Soomaaliland waxaan leeyahay dhaqaale weyn soo gala wadii malihi dhaqaale in masoo because minister bana ay know in waxina soo galaan war waxayna soo gala hal laga macnii hal la inoo hagaajiyo iyo mucaaridka dhibaatada lagu hayo iyo saxaafadda dhibaatada lagu hayo waxay inaga hor istaagaysaa اعترافكي الدنيا إن اعتراف لها أولاً وإن إنه جده الناس اعترافنا سوماليلاند جده هذا مركز اعترافته وصحافة دي الاعترافه إلهي من كل إن يرى صحفية هذا أيال اللي أراري بالودرة أديات بعد ما سنتهي محمد ياسين حسن أو أها وزير هراء سوماليلاند إسلام مركزنا الدبلوماسي هراء دبلوماسية ده مركز لقلنا طبعا قفك ولقي درجة الدبلوماسيين ده كمل لهم تو أغونتي ده أيوه هستا وأكون هذا لنا أنا برنامج كان أجل قيم كشجار كرأيك يتلفزيون كعالمي جاي يونيفرسال يماتن كأعتمد استوديو كويا على مجال لندن وعنهم هذا لنا يا دمان داود ياشو ملكستو أي شوغان يوجد أهم بأنت برنامج أجل قيم كشيء يو فرصة رجع فدي عبد الرشيد رشكا يو محمد بيباي أنا محمد أحمد حاج عقمدية أنت أويرهاي ونوينهاي وداود ياشا وحنا لا ملكستو جوجتان اسمعنا دافين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.